dadka qaarkood dadkeenu qabyaaladii baa meel sare maraysa waxa laga yaabaa inay yiraahdaan isku qolatin isku qoleen manhid abdikariin ismana naqaano dibaanada golaha deegaanka waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu sheegay gabadh buu sheegay maalintii oo dhan funaano toleysay maalintii oo dhan casarkii markii ahaydna dib bay u furfurtay dib ayay u furfurtay haddaba waxay maanta oo dhan qabanaysay iyaga golaha deegaanka waxaan leeyahay aayadaas uma leeyahay dhowr iyo 30 sanadood ay Somaliland jirtay ismalihi xildhibaan la wax qabada isagii gruubkiisa wataba wallahi baanan garanayn haddaan dhaar ku maranay ismalihi dhaarta waxba kaaga iman karmaan wuxuu ahaa ninka isagoo soconaya noo yimi labadii qole kala boo iga dhaceen horta kulmiye noomabu imanba ucidna wallahi anigu beenidin sheegi maayay meelaha qaar kood wax qabadku ka qabtay markaan xasuusto dawladii kacaanka ahayd iyo sidii laamiyad iyo meelaha u daryeeli jirtay ayaan xasuustaa marka qaarkood ayaamahan waxaynu maqlaynay buuq fara badan oo dhacaya xildhibaanada golaha deegaanka oo leh xilkii baan ka tuuraynaa maayir mooge horta waxa weeyaan nimayo mushkilad bay haystaa dadku waxa weeyaan qofkii wax qabanaya ummadan qofka wax u qabanaya inaynu arki weyno waa ayaan darro weyn ama dadka qaarkood baa arki waayaan beri dhaweyd waan arkeenay qaylo fara badan oo ciida ka baxday wallahi anigu beenidin sheegi maayay meelaha qaar kood wax qabadku ka qabtay markaan xasuusto dawladii kacaanka ahayd iyo sidii laamiyad iyo meelaha u daryeeli jirtay ayaan xasuustaa marka qaarkood soo garmaysa ragga qaarkood waan u sheegay sanadkii dhaweyd maraan Itoobiya marayay oo cilmiga dhaxalkan ku tabliiqaya 4 gobol ma soo maray war dheer ban maray gobolka Doolo أنا وهالكاس كشجع عبد الكريم موجي اسمنا نقارنه مكه اسمنا نقارنه شخصية اسمنا نقارنه وحكلوا مصالحها أورنتي أن وأمانية متشرتو لكن وحن كنت على وحقبتك وردير بالمراية مكان لها عابد وقنا ونسد دعي نما هالكاس وضيالة ومالنتي كنت أسدح مساجد بند حلقة كآخر شيء مكان وردير مري قالوا مكاهيل هذا الدجا يقعدوا متشرتين في قيب كمية إن دبيتنا نمن وضيالة انقلبتي وذا فريسلي ayaanu sheeko soo hadal qaaday sheeko adigu wax qabadka iyo wadanka ku saabsan dabeetana ninkii la oran jiray bila rafle guuleed waa garanaysan odayaashu ay garanayaan ayaanu soo hadal qaaday markaasaan xagga Somaliland ninkaas waa nin aad loo weyneeyo wax qabadkiisana runtii ceeb lagu ma sheegan ninkaas marka laga hadlay dawladda kacaanka ahayd markaas waxaan ku yiri war nin khayr qaba ah oo isaguna la midabaan ku yiri bila rafle ayaa maayir ka aban meesha hargeysa halkaas in ka amaanay anigu war dheer maraya ujeedo kalaan kala hana wallahi baan jirin laakiin maxaan ku jeclaaday wax qabadka oo ninkaas wadanka wax qabanayo runtiina dadka inta caafimaadka qabta aad bay arkaysan kelmad waxaan u dirayaa halkan fariin horta midda koowaad anigu ma ihi wadaadada madaxtooyada iyo hawlaha gala fariinta halkan baan ka dirayaa waxa laga yaabaa ilaa bila raflaha aan sheegay hargeysan dhex taagna 77 baan hargeysan soo galay ilaa ay dhaayirkii hargeysan dhex taagna waxa madaxweyne Somaliland soo maray halkaas ay ugu yimaadeen gaandi baan joogay bila raflaan joogay waxaan joogay Morgan baan joogay intaaba waan joogay soo garmaysid ninka aan madaxtooyada wali gelin baan mana jecel inaan galo xaqiiqatan oo salafkii iyo dadkii hore waxay naseexooyina way gudbin jireen laakiin anigu wax barasho iyo hawlo kale mooyaane kama helo hadii jeer inaan meelaha iyo xataa wali kuman hamin xil dawladeed qabat wallahi aan wali ku hamin laakiin dadkeena wax qabanaya runtii in aday waxa weeyaan wixii khayra in lagu garab garo ayaa loo baahan yahay maalimihii la doortay maayarka yadii xildhibaanadiisa oo garana dooxa sida ka dhigan dooxi oo qashinkiisa aad garanayso waxaan xasuustay maalintaana dooxa ay alaabta gurayeen waxaan xasuustaa 1977 halkan uu abahay malcaamad ku haystay beriga niyo hargeysada markaas kitaabadu markay go'aan ayuu intii loo dheebi oran jiray aaba dooxa ku soo aasa waqti dooxoode xariir oo burcamuud aad moodo tiibaan xasuustay runtii sidoo kale marka waxa weeye dadkeena caynkaasa faana maahe dhowr iyo 30 sanadood ay Somaliland jirtay ismalihi xildhibaan la wax qabada isagii gruubkiisa wataba wallahi baanan garanayn haddaan dhaar ku maranay ismalihi dhaarta waxba kaaga imanaysa laakiin wax igu kalifaya dhaartaasan jirin tacassub iyo cid kale
iyo dadka qaarkood dadkeenu de qabyaaladii baa meel sare maraysa waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan waa isku qolatin isku qoleen ma nihin cabdikariim ismana naqaano laakiin ilaahay dartii iyo waxqabadkaa uu qabanayo ayaa wallaahi aan la fadhii kari waayo oon jecelaystay inaan kelmaddaa aan markaa u mariyo madaxweyne cabdiraxmaan ilaahay subxaana watacaala xilka isaguna ha ku guuleeyo cabdiraxmaan ciro dhowr iyo 10 sano iskuulka ay dambaysay mar aan kooras dhaxalka arday guddoonsiinayay oo meesha kaah la yidhaahdo aan xafladda ku qabtay beriga xafladii kulmiye iyo ucud iyo wadani intaba waan ku casubay cabdiraxmaan ciro wuxuu ahaa ninka isagoo soconaya noo yimi labadii qole kaleba way iga dhaceen horta kulmiye noomagu imanba ucudna wuxuu soo dirtay wakiilo cabdiraxmaan wuu yimi rabadaan bay aadan beriga buu goostiisa ku qoray waa ninkani mala wadanka hadduu qaban lahaa waxbuu tari lahaa isagana wuu ducaynayna ilaahay subxaana watacaala xilka madaxweynene loo doortay weliba berigaa kelmad uu yidhi maan iloobin wuxuu yidhi sheekh koorsooyinkaa dhaxalkaad bixinayso bal anigana igu soo darbiiri listada inkastaan ku darino koorsooyin dambena ay dhaceen oo dee nin mashquul ku jira ayuu ahaa walaalayaal waxa weeye golaha deegaanka aan leeyahay dee waxa weeyaan waa baalashii uu ku duulayay mayarku iyagana fariintan u gudbinaya waxay tahay war niman yahow iyaga aayad quraan kula hadlaya waxaan leeyahay walaa takunuu kallatii naqadat ghazlaha xildhibaanada golaha deegaanka waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala wuxuu sheegay gabadh buu sheegay maalintii oo dhan finaano tolaysay maalintii oo dhan casarkii markay ahaydna dib bay u furfurtay ayay u furfurtay haddaba waxay maanta oo dhan qabanaysay iyaga qolaha deegaanka waxaan leeyahay aayaddaas uma leeyahay walaalayaal waxqabad weyn baa qabateen oo dee mayorkuna waa idinka mid madaxdu idinku yahay waxqabadkaa waa wada qabateen laakiin ha noqonina kuwa ilaahay sheegaye gabadhii finaanada tolaysay dib u furfurtay ha noqonina taariikhdu yaanay xumaan idinku xusan anigu ninkaa iyo bulshada badankeeduba ninkaa xumaan aan ku sheegno ma garanino wadaadadan garanaynin shacabkan garanaynin salaadiintu waa kuwan ayaamahan waa qaylinayeen wadaadadana waxaan leeyahay wadaadow xaggiina laydinka soo dhacay dee ciddii wax inoo qabanaysa aynu dhinac gallo inagoo xadiiskaa ka duulayna nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam unsur akhaaka daaliman aw madluuman intaasaan leeyahay ceeb kale usoo dhaafi maayo kolley laakiin dee xildhibaanada laftigooda inaanay wada kacsanayn baa lee sheegay war intaa kacsana waxaan leeyahay war rabadaan baa laga soo baxayo dadka karaamadu way ka dhacaysaaye war balyaanay isheeda kusoo qalloocinin dadku oo waxqabadkiina halkaa kasii wada maayarkana ka daaya rabshada iyo dhibtaa ku wadaan dadka kale balaha bulshada ka qaylinayana ilmaada riyaal joojiya waynu arkaynaa maayarka waxqabadkiisa ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بصلاة وتسليمه مصداقا لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما